kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamij ku saabsan fanka iyo suugaanta Soomaalida. Haddaba maanta waxaynu ku eegaynaa muusikadii Soomaaliyeed kuwooda ugu kabanka macaana. Haddaba macallimiintii kabanka Soomaalida waa ay badnaayeen. Kabanka Soomaalida ama cuudka aaladda loo yaqaano ee Soomaalida aadka u jeceshahay ayaa wuxuu lahaa macallimiin aad iyo aad loogaga dambeeyo sida Xudeydi iyo waliba ustaadka weyn Allah u naxariistay Axmed Naaji Sacad. Waxay ahaayeen dadka kabanka ka dhawaajiya loogana dambeeyo iyaga. Axmed Naaji Sacad, Xudeydi iyo waliba Cumar Dhuule waxay ka mid ahaayeen dadka Soomaalida marka la tilmaamayo kabanka number 1 ka ah. Laakiin inagu kuma eegayno laxanka yaa u aqoon badan ee waxaynu ku eegaynaa muusikadii Soomaaliyeed ee iyo kutumi jira fadhiga ama cuudka kabanka ah ee marka la qayliyo ama fanaaniinta ay fadhiyaan anjaladihii la kabanka ahaa ee la duubay waagaasi dadkii ugu garaacista macaana. Haddii aynu u eegayno yaa ugu aqoon badan kabanka iyo waliba garaacistiisa, Xudeydi Axmed Naaji Sacad ayaa iyagu number 1 galaya. Laakiin dadkeenu isbarbar dhigayno waa dadkii fadhiga tumayay ama qaaciga waxa loo yaqaano. Haddaba waxaynu isbarbar dhigi doonaa dhowr fanaan oo iyaga lagaga daba dhacay qaaciga gacantoodana aad iyo aad loo yaqaanay. Haddaba waxaynu ka bilaabaynaa ustaadka weyn ee Saalax Qaasim Naaji oo isagu ka mid ah top 5 ka dadka kabanka garaacistiisa xagga qaaciga iyo waliba fadhiga ugu fiicnaa. haddaba intaas aynu kaga gudubno ustaadkii weynaa ee Saalax Qaasim Naaji. waxaynu kala soo qaadanaynaa ustaadka weyn ee isagu lagaga daba dhacay xagga garaacista qaaciga marka kabanka la tumayo ee ustaadka weyn macallinkii cuudka iyo waliba boqorkii cuudka ninka lagu magacaabay waa musiciankii weynaa iyo waliba la xamiistihii Jim Sheekh Muumin. Jim Sheekh Muumin wuxuu ka mid ahaa la xamiistayaashii muusikada Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan. walibana wuxuu ahaa fanaan heesaha qaada. laxankiisa iyo waliba muusikada uu sameeyo waxay ka mid ahaayeen kuwa ugu caansan ama ugu macaan suugaanta iyo waliba fanka Soomaalida. Jim Sheekh Muumin ayaa isagu waxa uu sameeyay laxamo badan oo ilaa iminka la yaqaano. isagu riwaayado iyo heeso badan u sameeyay laxanka iyo waliba muusikada iyo naaxiyada waxa loo yaqaano. laakiin waxa uu ka mid ahaa sidoo kale macallimiinta ama waliba boqorka kabanka qaaciga marka laga hadlayo tuma. Jim Sheekh Muumin haddii uusan number 1 ahaynin waxa uu yahay toobka ugu wanaagsan dadka laxanka ama kabanka ku tuma muusikada, isagoo waliba kabanka sidoo doona uga dhawaajiya dhadhan gooniyana u yeela. walibana dadka kabanada tuma Soomaalida ay ku tilmaameen inuu qaab cusub iyo waliba hab aad u macaan badan uu ku soo zaydiyay garaacista kabanka. xargaha kala duwan ee kabanka ayuu sidoo doona u isticmaalayay ustaad Jim Sheekh Muumin, isagoo markii uu kabanka gacanta ku dhigo dadku fadhiga ay ka kacayeen, muusikadana iyo laxankiisa samawaadka ee kala leeyeen shimbiruhuna inta ay fadhiistaan ay dhageystaan. bal hees uu tumayo ustaadka weyn Jim Sheekh Muumin isagoo laxan aad u macaan badan ku tumaya bal aynu dhageysano. عجبي 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 عويو يا
دقيق عليهم عرهدن درتك لك عينه وبحنا تنيو عليك قد جاي intaas aynu kaga gudubno muusikadaasi macaanta badan oo noo tumay boqorkii cuudka ustaadkii weynaa allaha u naxariistay Jim Sheekh Muumin Aweys Goobe waxa uu ka mid ahaa dadka lagaga dambeeyo garaacista kabanka qaaciga marka laga hadlayo heesaha canjalka kabanada ugu badan ee fanaaniinta ugu waaweyn Soomaaliya sida Magool iyo waliba Xasan Aadan Zahra Ahmed Jaamac iyo kulu ay qaadayaan magac Goobe dhawaaqiisa iyo waliba u yeeridiisa in badan ayaa laga dhex maqlaa. Aweys Goobe wuxuu ka mid ahaa musicianadii Soomaaliyeed kuwooda ugu caansanaa. Wuxuu caan ku ahaa tumista bateriga isagoo waliba noocyada kala duwan ee qalabka muusikada sidoo doona u isticmaalayay. Wuxuu ka mid ahaa macallimiintii muusikada ee kooxda Waaberi wuxuuna ahaa laxamada u sameeya heeso badan oo iminka la qaadana laxamada u sameeyay. waxay saaxiib dhow ahaayeen abwaanka weyn ee Maxamed Cali Kaaxiye isagoo walibana laxayso badan uu abwaanka sameeyay lacanka uu sameeyay. Aweys Goobe kaliya caan kumuusan aheenin garaacista bateriga iyo waliba laxan sameynta. waxa uu ahaa macallin ka mid ah macallimiinta tunta kabanka walibana sidoo doona ugu baashaala dadkana jeclaysiiya fanaaniintana magaciisa kaga dhawaajiya. canjal kastoo kabana ama kaban lagu tumo haddii aad dhageysanaysid waxaad maqlaysaa magaca Aweys Goobe ay ku dhawaaqayaan fanaaniin ay ka mid yihiin Magool, Qadar Daahir Xasan Aadan iyo kuwa kale. wuxuu ahaa fanaan banaanka ku dhacay sidoo doonana kabanka ama cuudka u tuma. xaragaha cuudka ayuu wuxuu doono ka sameynayay isagoo ka dhawaajinaya kana dhigaya inuu qalab kala duwan ku tumayo isagoo markaas cuud shimbiliish ah oo kaliya gacanta ku haya. Aweys Goobe bal inuu dhageysanay heesaha badan uu tumay mid kamid ah isagoo cuudka kaga dhawaajinaya haadkana ka duulinaya. daba intaas inuu kaga gudubnay heestaasi macaanta badan oo inoo tumayay macallinkii cuudka iyo kabanka Ustaad Aweys Goobe Allah u naxariistee. waxaan u gudbaynaa mid kamid ah fanaaniintii xilliyadii dambe isagoo kamid ka ahaa macallimiintii iyo waliba dadkii ugu macaanaa muusikada Soomaalida Daawud Cali Masxaf Allah u naxariistee. waxa uu ahaa fanaan musician ah heesahana qaada walibana fanaaniinta ay aad u jeclaayeen markii uu dhinacooda taagan yahay gitaarkana uu gacanta ku haysto. waxa uu ahaa mid tuma gitaarka liidka codka dheer walibana caan ku ahaa noocyada kala duwan ee muusikada ayuu fanaanka aad iyo aad caan ugu ahaa. laakiin xilliyadii dambe waxa uu ka mid ahaa macallimiintii kabanka ama cuudka sidoo doona u tumeeyay marka qaaciga laga hadlayo. Jim Sheekh Muumin, Aweys Goobe, Axmed Cali Cigaal, Isaalax Qaasin ayuu waxa uu la mid ahaa ama uu u dhawaaba. Daawud Cali Masxaf
waxaa aad u jeclaa fanaanka weynaaye xasan aadan isagoo cuudka marka loo tumay xasan jeclaa inuu dhinac fadhiyo daa'uud cali masxaf marka muusikada musishinka masraxana la joogana wuxuu jeclaa in gitaarka codka dheer u tumo daa'uud cali masxaf. daa'uud wuxuu ka mid ahaa laxamiistayaasha Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan. waxa uu ahaa fanaan cuudka tuma welibana ay jecel yihiin hablaha iyo fanaaniinta Soomaaliyeed markay qaaciga u fadhiyaan ama ay qayilayaan. ka dhawaajinta gitaarka iyo weliba cuudka waxay ahayd mid aad iyo aad ugu raaxaysto fanaanka weyn Allah u naxariistee daa'uud cali masxaf. laynu dhageysano is uu kaga dhawaajinayo kabanka daa'uud cali masxaf. haddaba waxaynu u gudbaynaa fanaan isagoo caan ka ah geeya Soomaaliyeed. wuxuu ka mid ahaa dadkii dabayaaqadii lixdameeyadii fanka Soomaalida soo galay. Axmed Cali Cigaal waxa uu ahaa fanaan buuxa. wuxuu ahaa fanaan kaliya muusan ahaynine wuxuu ahaa laxamiiste laxamada sameeya heesihiisa inta badanna 90% isaga laxanka u sameeyay. kuwa kale ee caanka ah fanaaniinta kale waaweynka ee qaadaana laxamo aad u macaan badan oo ay shimbiruhu inta ay fadhiistaan dhageystaan samawaadka ka lalayana uu sameeyay. Axmed Cali Cigaal wuxuu macallin ku ahaa tumista kabanka. wuxuu ka mid ahaa fanaaniinta Soomaaliyeed kuwooda loogu jecel yahay marka uu cuudka inta qabsado xargahiisa ka dhawaajiya. fadhiyada ay fanaaniintu ay fadhiyaan marka ay qaylayaan heesaha qaacigana ay isku madadaalinayaan. Axmed wuxuu ahaa kuwii ugu wanaagsanaa ee kabanka loo dhiibayay. Axmed Cali Cigaal marka uu kabanka ka dhawaajinayo fanaaniintu fadhiga ayay ka kacayeen. wuxuu lahaa gacan aad u macaan oo marka ay tumayso kabanka ama cuudka ay aad iyo aad dadka ay u jecleystaan. bal aynu dhageysano hees uu tumay fanaanka weyn ee Axmed Cali Cigaal. shilba wuxuu ka dhacayaa shabad quruxsan iyo wiil shada iska deeqo sheekaysta maalmeen. shilba wuxuu ka dhacayaa shabad quruxsan iyo wiil shada iska deeqo sheekaysta maalmeen. shibadoniga oo dhan shogmayayste shibadoniga oo dhan shogmayayste intaan sharaadtu iga bixin ishifayso adiguna ishifayso adiguna. intaas aynu kaga gudubnay heestaasi macaanta badaleed ee gacantiisa aadka u macaan ee noogu garaacaya fanaanka weyn Axmed Cali Cigaal. shantaasi musishin ee kabanka aadka loogaga dambeeyo ayaynu soo qaadanay. haddaba adigu yaa number 1 sii lahayd. dad badan oo fanka Soomaaliyeed ka faalooda waxay number 1 ka dhigaan Awees Goobe oo isagu qaaciga marka laga hadlayo ahaa midka ugu gacanta macaana fanaaniinta ugu waaweynna ee aad iyo aad u jeclaayeen. waxay kaalinta labaad soo geliyaan Jim Sheekh Muumin kuwana Jim Sheekh Muumin ayay kaalinta koowaad geliyaan. Saala Qaasin
ayay kaalinta saddexaad la geliyaa, welibana Axmed Cali Cigaal ayaa kaalinta afraad la geliya, halka Daawud Cali Misxafna kaalinta shanaad uu soo galayo, maadaama fanaaniintaasi uu fanka uu kaga dambeeyey. Adigu sideed u kala xuli lahayd? Bal inoo soo gudbi liistigaada oo aad dadkaasi musicianka gabanka tumayay aad adigu kala siin lahayd kaalmaha. intaas ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena maanta. dib dambe intaynu u kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa nabaadiina nooli kulanti iyo amaana Allah.